بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داود المل كستو جوجتان iskastono daawaneysaan kusoo dhawaada barnaamijka xogta ciyaaraha dalka qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka waxaa ka mid noqon doona maamulka Galmudug oo markaasi qaban qaabinayaan tartanka degmooyinka gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka oo shaacin doona waqtiga tartankan la qaban doono sidoo kale barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa diyaar garowga xoogan ee lagu jiro tartanka maamul goboleedyada oo caasimadda Muqdisho ee lagu qaban doono iyo sidoo kale magacaabista macallimiinta qaarkood oo la magacaabay degmooyinka oo markaasi gobolada dalka oo diyaar garow xoogan ugu jira tartanka maamul goboleedyada oo iyagana xulan doona ciyaartooyda ka soo qayb gali doonta sidoo kale barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa xulka qaranka ee 23 jirada oo iyagana diyaar garow xoogan ee ku jira kuwaas oo isku diyaarin doona bisha soo socotay inay ka qayb gali doonaan tartanka qaaradda Afrika ciyaartooydooda ay markaasi ka weyn tahay 23 jirada ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale xulka qaranka 15 jirada oo isna markaasi tababar bilaabay kuwaas oo iyagana la xuli doona dhawaan tartan ay ka qayb gali doonaan barnaamijka xogta ciyaaraha dalka ayaan idinku soo gudbin doonaa hadduu alidmo barnaamijka waxaa soo saaray idin la socodsiinaya anigu Guuleed Cali Cusmaan barnaamijka dhameystiran daawadayaal ku soo dhawaada waxaa dhawaan markaasi bilaaban doona tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo qaarkood ay hadda diyaar garow xoogan ugu jiraan maamulka gobolka Banaadir ayaa dhawaan magacaabay macalinka leelin doona gobolka Banaadir kaas oo loo magacaabay Daadilamiin Cali Raage oo hore markaasi u soo looliyay degmada ama gobolka Banaadir kaas oo sanadkii ugu dambeeyay ee ku guuleystay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana sidoo kale Galmudug loo magacaabay Axmed Tahliil Cali oo markaasi noqon doona macalinka xulka gobolkaasi ee Galmudug oo dhawaan ahaa macalin waxtar u ah kooxda kubadda cagta Genyo sidoo kalena hore ayuu u soo leeliyay maamulka Galmudug tartankii lagu qabtay caasimadda Muqdisho gobolka Banaadir ee ku guuleystay sidoo kale waxaa isna Hirshabeelle loo magacaabay macalin Cabbaas oo kamid ah daayirta macallimiinta ee degmada Dharkeelnay kula guuleystay koobkii markaa gobolka Banaadir oo qayb weyn ka ahaa sidoo kalena ahna ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Hegan oo horeyna ku soo caanbaxay naadiga Badbaado ayaana kamid ah dadka loo magacaabay maamulka Hirshabeelle ee sanadkan ay leeliyaan waxaa jira tartamo kale oo xoogan oo iyagana markaasi socda iyagoona degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada maamulada ay iyagana bilaabeen diyaar garow xoogan oo tartankan loogu jiro Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo dhanka Puntland ayaa weli aan magacaabin macallimiinta leelin doona iyo diyaar garowga sanadkan laakiin waxaa la qorsheynayaa in maalmaha soo socda ee lagu dhawaaqi doono markaan waxaan eegi doonaa daawadayaal maamulka Galmudug oo markaasi qaban doona tartanka degmooyinka hoostaga maamulka Galmudug waxaa maanta digreeto soo magacaabay dhanka gudoomiyaha isboortiga ee gobolka markaa waxa uu soo magacaabay degmooyinka ka qayb gali doona tartankan oo aad la isku soo diyaariyay iyagoona ka xulan doona ciyaartooy kala duwan oo markaasi leelin doona tartanka maamul goboleedka ee soo socda ku gudoomiyaha Galmudug kubadda cagta iyo tartanka ayaa markaasi ku xusan maamulka degmada Cadaada ayaa ku xusan og wasiirka ku-xigeenka wasaaradda isboortiga ciyaaraha Galmudug og wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee maamulka Galmudug ujeedo tartanka kubadda cagta degmooyinka Galmudug gudoomiyaha xiriir kubadda cagta Galmudug markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha tartanka kubadda cagta ee Galmudug markuu arkay baahida loo qabay dardargelintan oo markaasi tahay mid degmooyinka gobolka Banaadir waa maamulka degmada Galmudug oo qayb markaasi ka yihiin tartankan markuu tixgeliyay soo jeedinta talooyinka maamulka ciyaaraha degmooyinka Galmudug oo markaasi
ku jira in la qabto tartan xamaasad leh markuu arkay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay markaas soo saareen 10 koox ama 10 degmo oo ka qaybgali doona tartankan. degmooyinka loo caleemo saaray in tartankan loo qabto ayaa kala ah degmada Gaalkacyo, degmada Cadaado, degmada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, degmada Cabudwaaq, degmada Balambal, degmada Hobyo, degmada Gurceel, degmada Baxdo, degmada Xaraale, degmada Wisil. 10kaas degmo ayaa loo qaban doonaa tartan, waxaana sidoo kale xalfadda qorituurka tartankan la qaban doonaa 26 bishan 2023 ku jirno. waqtiga ay u soo xaadiri doonaan kooxaha ka qaybgalaya tartanka ayaa waxay noqon doontaa 1 bisha 6 2023. sidoo kale waxa uu ku egyahay 3 bisha 6 2023, waxaana ciyaartooyda bilaabi doonaan muddo tababarkooda si maalmahaasi ay u noqdaan kuwa la isku diyaariyo. waxaana warqadan ku saxiixan gudoomiyaha ciyaaraha Galmudug, sidoo kale wasaaradda ayaa ku saxiixan, waxa uu dhaqan gali doonaa dhawaan. waxaa laga yaabaa in ciyaartooy badan sanadkan u soo bixi doonaan maamulka Galmudug oo isku diyaarinaya tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dhawaan dhici doona. waxaan eegi doonaa markaan xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta. xulka qaranka ee 20 jirada ayaa ka qayb gali doona tartanka qaaradda Afrika ee ciyaartooydoodu ay tahay 23 jirada, waxaana dhawaan maamulka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay shaaciyeen in bisha soo socota ay ka qayb gali doonaan ciyaartooydaasi oo ay markaasi noqon doonto in ciyaaraha qaaradda Afrika ay markaa wax badan ka soo bedeli doonaan. gudoomiye Cali Shiine iyo guddiga fulinta iyo macallimiinta ayaa ka fikiri doona qaabka ciyaartooyda loo xulin doono, iyagoo hadda socota xulista ciyaartooyda iyo sidoo kale diyaar garowga tartankan ay ka qayb gali doonaan ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya ee 23 jirada. dhawaan ayay ahayd ciyaartooyda 17 jirada ee xulka Soomaaliya ay ka qayb galeen tartanka marka ciyaartooyda qaaradda Afrika daadoodu ay ka hooseyso 17 jirada ay markaa guulo aan sidaas u weyneyn ka keeneen, laakiin ay soo bandhigeen ciyaaro aad u wanaagsan, horeyna ugu soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika. ay markaasi ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya 17 jirada ay markaasi guushaasi keeneen. waxaana hadda laga sugayaa ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya ee 23 jirada in isbedel weyn iyo guulo waaweyn ka soo hooyaan tartankan, iyagoona tartamadii ugu dambeeyay ka qayb galay xamaasad weyn ay markaasi ka soo qabteen muddooyinkii ugu dambeeyay, iyagoona ay yihiin ciyaartooy xirfadoodu aad u sareyso. inta ugu badan ciyaartooydan ayaa laga xuli doonaa caasimadda Muqdisho iyo gobolada dalka qaarkoodna laga soo xuli doono dhanka markaasi qurbaha, oo ciyaartooy badan ayaa jaanis u heli doona. ciyaartooyda xulka 15 jirada ayaa iyagana qayb ka ah oo dhawaan tartan ka qayb gali doona, waxayna diyaar garow xoogan ugu jiraan sidii ay ugu qayb gali lahaayeen ciyaaraha kala duwan ee markaasi xulka qaranka Soomaaliya. waxaana la diyaarinayaa ciyaartooy daadoodu ay tahay 15 jiro oo iyaga laga yaabo inay ka qayb galaan tartanka markaasi jaamacadda Carabta daadoodu 15 jirada. waxaana la filayaa in ciyaartooydan hadda la diyaarinayo loo magacaabi doono macallimiin khibrad u leh, waxaana diiradda hadda u saaran in loo magacaabo macallin Salaad oo markaasi kamid ah macallimiinta xulka qaranka Soomaaliya da'da qaybihiisa kala duwan soo leeliyay dhawaana tartamo waaweyn ay markaasi ka qayb galeen, isagoona ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya 17 jirada sanadii hore ay tageen finalka kama dambaysta oo Tanzania ay markaasi finaalaha ay ku soo reebtay. wuxuuna ka mid yahay macallimiinta sanadkan mar kale loo caleemo saari doono in guul kale oo taariikhi ah la soo ciyaartooyda da'da yar 15 jirada. guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka xogta ciyaaraha dalka. intaan barnaamijkan kale ku kulmi doono sida iyo nabad